magaalada Ingolstadt markii dalka la joogo waxay caan ku tahay shirkaddan loo yaqaan Audi. Audi waa shirkad soo saarta gawaarida, laakiin dalka oo kaliya ayaan dhihin, xitaa caalamka waxay caan kaga tahay shirkaddan gawaarida soo saarta ee loo yaqaan Audi. Haddii aad hore noola joogtay, waa ku mahadsantahay la joogtaan. Haddii aad nagu cusub tahay, ha naga iloobin inaad noo taabato subscribe-ka, like-ka, comment-ka iyo share-kana. صباح wanaagsan, galab wanaagsan, habeen wanaagsan. Adiga kula hadla. Maadaama aan ku noolnahay dilo kala duwan, xilliyada lagu kala jirin ay kala duwan yihiin, waxa ay ku tahay oo wanaagsan. Maanta waa maalin kale, anigu subaxii ii tahay, waxaan u socdaa magaalada Ingolstadt. Inta ku kala harnaa, nakeena dhammaan. safarkan wuxuu qaadan doonaa saacad iyo 15 daqiiqo. saacad iyo 15 daqiiqo waxaan joognaa magaalada aan u soconno. saacad iyo 15 daqiiqo kadib waxaan soo cagadhigtay oo aan imaaday magaalada Ingolstadt. markaan korka fiiriso waxaan ujeedaa inay buuxdhaafiyeen gawaari fara badan oo halkan lagu wada baakiyey. halkan waxaa ka bilaaban doono booqashadeeda magaalada tan aan horeyda kuugu sheegay. waxaan gudaha u geli doonaa magaalada gudaha waxyaabo xilliga waa aroor hore. waxaad dareemaysaa magaalada jawigeeda inuu degan yahay maadaama lagu jiro waqtiga qaboobaha ee loo yaqaano winterka. hadda waxaan dul taaganahay buundo magaceeda loo yaqaano Brückenkopf. buundadan taariikh ahaan waa buundo taariikhi ah, waana meel laga difaaci jiray magaalada xilliyadii hore qarnigii 19aad ayaa la sameeyay. xilligan hadda la taagan yahay waxay u taagan tahay taariikh ahaan in la dhihi karo waxayna xasuusinay sidii waagii hore magaalooyinka loo difaaci jiray. halkan waa bustaajada ugu weyn ee laga raaca basarka ee magaaladan. waxaa imaado basas fara badan kala aado jihooyin kala duwan. waxaa dareemi dadka inay u kala socdaan meelo kala duwan. halkan waa Red House-ka ama meesha laga maamulo magaalada. dhismahan hortiga iga soo qabanayo baska hadda iga aadan yahay already waa muuqdaaba hadda. waa halka xafiisyada dowladda ay ku kulmaan. xafiisyo fara badan oo kala duwan ku yaalo. waxaa la dhihi karaa waa centerka laga maamulo magaalada.